kulanti wacan wanaagsan marka la ku soo dhawaada Mentor Hussein page-kayga Facebook watch iyo sidoo kale YouTube-ka inta waa gala socon kartaa waxaan bixiyaa casharo ku saabsan ganacsiga qaabka qofku ganacsi u sameyn karo haddaba cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay a good mentality maskax maxaa ahayd fiyow ganacsiga inta badan muruq lagama qabto xoog laguma qabto ganacsi waxa laga qabtaa xagga maskaxda saas awgeed maskaxdaadu inay fiyowdahay una diyaarsan tahay inay ganacsi qabato ayaa asal ah ogow qofka hadii uu muxuu ahaa farxad uu dareemin reer uu dareemin socodkiisa xataa talaabta ma qaadi karo marka aadan faraxsanayn xubnuhu dhan xoogeen laga siibay ayaa umaleynaysaa talaabta ma qaadi karto saas awgeed waa inaa u diyaar garowdaa xagga maskaxda ah xagga maskaxda dagaalku ganacsigu waa dagaalka maskaxda waa in xagga maskaxda u diyaar garowdaa mentality influence one's ability qofka maskaxdiisa ama hal adeega maskaxdiisa waxay duufsanaysaa awoodda kale uu leeyahay waxay duufsanaysaa fate ama mustaqbalkaaga ama future-kaaga ama qadartaada intaba saas awgeed waa in xagga maskaxda aad looga dadaalaa meelaha la rabo waxa weeye mentality of learning marka koowaad inaa ogolaato inaa wax cusub barato maxaa yeelay ganacsigu mar walba waa cashir aan dhammaan maalin walbana wax cusub ayaa ku kordhaya saas awgeed si aad ula jaan qaado waa in aad yeelataa dhaqan maalin walba inaad kororsato oo cilmi cusub aad zaaisato dad fara badan ayaa dhahaya waan duqoobay wax ma baran karo wax hor lama baran karo ama dad baa taaganba wax badan ayaan soo bartay intaas ayaa ugu filan intaba sax maaha xagga mentality of learning waxaa la rabaa marka koowaad inaad qof wax baranaya tahay sidoo kale mentality of being a boss okay sidoo kale waxaa la rabaa inaad isku aragtid qof madax bannaan oo iskeed u shaqaysata ganacsigana iyada iskale inta badan dadku waxay u badiyeen shaqaalo dad baa jaamacada dhameeyay 20 sano master ah ama PhD ah still they are slave they are not master at all maxaa yeelay cid kale ay sugayaan inay adeejiso wax u dirto iyaguna in yaroo go'an oo mushaari ah inay qaataan ay rabaan saas awgeed ganacsigu noocaas kuma shaqeeyo ganacsigu wuxuu ku shaqeeyaa mentality of being the boss inaad isku aragtid in adigu tahay badrooni qof ganacsigan iyada iska leh saas awgeed energy-ga waqtigaaga inaad si fiican markaad waqti iyo energy gelinayso inaad u aragto in aad ku maalgashanayso ganacsigan ayaa aas ah oo muhiim ah sidoo kale wili xagga maskaxda ku jirnaa mentality of gratitude si ganacsigan ugu miro dhaliso waxa u baahan tahay mar walba qof nimcada iyo khayrka yimaada ku shukriya ilaahay wuxuu yiri in shakartum la azidannakum kolka shukrisaan walidin zeedinaya saas awgeed marka ganacsi rabtayna samaysid ganacsigu culeysyo iyo faa'iido waa leeyahay inta badan diiradda hawada saarin culeysyada iyo caqabadaha ka hortaagan sidoo kale nimcooyinka faraha badan ee ganacsigan aad ku haysato kullu waa badan yihiin kama had cili okay sidoo kale mentality of persistence qofka waxa laga rabaa inuu dulqaad leeyahay ganacsi wuxuu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay waxa yaro saalama sababta dad fara badan ay ganacsato wahayn oo in yaro dadka kamid ah ay ganacsato yihiin waxa way waa ka dulqaad badan yihiin maxaa yeelay ganacsi walba iyo shaqo walba la qabanayo waxa shaki ku jirin in caqabado iyo culeysyo ay la hareeraan saas awgeed caqabadahaasi iyo culeysyadaasi waa in aad tahay qof dulqaad leh oo adkaysan karo sidoo kale waxa la yiraahdaa good habit caadooyinkaaga inaad bedeshid oo caadooyin wanaagsan ay yeelato tusaale kale inaad waqti hore soo kacdid kala haado kale waxay kamid tahay waxyaabo irsaaqada lagu badiyo saas awgeed waa inaad tahay qof kala hada sidoo kale ganacsiga kala hada rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ummadeeda waxaan u barakeeyay kala hada sidoo kale waqtiga maareyntiisa waa inaad waqtiga aad u maareysaa caadooyinka fiican ay kamid tahay caadooyinka fiican waxa kamid ah labiskaaga ayaa kamid ah muuqaalkaaga image-kaaga ayaa kamid ah sidoo kale caadooyinka fiican waxa kamid ah habdhaqankaaga salaantaada dhoola cadeyntaada intaas oo dhan waa laga baahan yahay tani inta program noocan ku kulmayno waa Xuseen Maxamed Geedi oo idin leh kulanti wacan oo wanaagsan bye bye